madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Mas'uuliyiintan ayaa galabta Kismaayo kulan kula qaatay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Cabdimijiid Cabbaas aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray. madaxweynayaashii hore ee dawladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland labada gole ee Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Mas'uuliyiintan ayaa waxa socdaalkooda magaalada Kismaayo ay ku yimaadeen ku wehelinayay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dawladda Soomaaliya iyo waliba siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir. Mas'uuliyiintan ayaa markii ay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay soo gaareen waxa loo gudbiyay hoolka nasashada ee garoonka waxaana halkaasi ay kula hadleen warbaahinta. ugu horreyn waxaa goobta hadal la soo dhaweynaa ka jeediyay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga ballaaran ee la socday odayaasha xildhibaanada iyo senatarada la socday waftiga ka midka ahaa uguna hambalyeeyo booqashada ay noogu yimaadeen iyo kifaaxa ay maalmo dhaweed ku jireen iyadoo wax badan oo culays uu jiray ana rajaynayo dadkan hadda maqlay hadalladooda madaxweyne xasan sidaan noogu dambeysay sidaan noqonay wixii dadku sheegayeen bay ahayd laakiin waxaan leeyahay madaxweyne adiga waftiga aad baan idinkaga mahad celinayaa booqashada culayskeeda iyo miisaankeeda iskale waxaa reerahayga fadhiya waa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur aad baan u faraxsanahay maanta inaan idinku soo dhaweeyo magaalada Kismaayo garoonka aan joogno. madaxweynayaashii hore ee dawladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinacooda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku degdegtay xanibaadii ay dhawaan saartay diyaaradaha deegaanada Jubbaland waxaana dhinaca kale ay madaxda dalka uga digeen in aysan caburin siyaasadaha ka soo horjeeda qarar laga dhaca iyo caqabada wadada hor yaalla iyo meelo lagu sii hantaa turiyooda iyo waa la kulmayaa waxa bariyahan dhacayayna waxaas waxba kama duwana maanta diyaaradii ugu horeeyay ee keenay dadkii siyaasiyiinta ahaa ee ma tagi kartiin inta meesha la yiri dul qaatay ee aan dagaalamin ee aan fawdo ka talinin ee maxaan ku iraahdaa si silmi ah oo nabad ah ku raadiyay xalka ayaan anigu ugu horeeyaan imida in kala badan waa isoo daba socotaa way iman doonaan hadii alla yiraahdo dhamaan 30 sano kadib in loo celiyo nidaamka litarisa oo aan ogoleen sharci oo aan ogoleen Soomaalinimo oo aan cid oo xurmeynayo aan la arkin runtii waa nasiib darro laakiin waxa Ilaahay mahadiis inaan ku wada baraarugsanahay oo wada joogno taladeeda wada leenahay Soomaaliya meeshay joogtana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waa jecelnahay dawladnimada sharciga inay ixtiraamnaan rabnaa waxaan rabnaa laakiin dawladuna inay ixtiraamto waxa yar oo noo qoran muhiim ay noo yihiin ma dhamaystirnaa waa run laakiin waxaan rabnaa isaga in lagu dhaqmo. mas'uuliyiintan ayaa dhinaca kale si wada jir ah hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kulan ku yeeshay waxaana ay isla gorfeeyeen xaaladda dalka muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxaa soo gaarayay madax iyo siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay dawladda Soomaaliya iyo waliba qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka ka jira 22kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa wafdi hogaaminayo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo ku soo wajahnaa magaalada Kismaayo waxaana ugu dambeyn uu maanta soo gaaray magaalada Kismaayo.